الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan hadda waqtigan u qabanay saxaafadda inaan ka warbixino oo xisbiyada mucaaradka uga warbixino oo bulshada u sheegno kulankii wada hadalka la sugayay labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda iyo xisbigeeda inaanu u sheegno wixii aanu kala kulanay iyo waxaanu kala nimi waxa todobadii caawa ballan madaxtooyada lagu qabtay oo labada xisbi mucaarad ka qayb galeen laba xubnood na lagu wargeliyay ballantii hore noogu xidhnayd ee ahayd 18 May dabadeed aan kulanno laba xubnood oo wadani ka socda oo ahaa aniga iyo musharax madaxweynaha Amiin Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa afarta xubnood baan ku tagnay markii wada hadalkii furmay annagu ajandihii aanu ula tagnay waxay ahaayeen in arintii doorashada ee la isku maandhaafsanaa uu madaxweynuhu ka daayo carqaladda komishinka oo ahaa waxa weeye hay'adii u dhaxaysay xisbiyada hay'adii doorashada hay'adii madax banaanayd ee loogu talagalay inay doorasho qabtaan dalka ka qabtaan oo aanu arkaynay inay faragelin ku sameeyeen una sheegnay inaanu aragno tallaabooyinka uu qaaday oo dham inay faragelin yihiin inuu ka daayo madaxweynuhu loona ogolaado shaqadooda inay qabtaan lana soo dhameystiro xubnaha kale ka dhiman marka labaad xilligii doorashada oo 13 November ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetable-kii la isla waafaqo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo komishinku isla qorsheeyaan la isla saxeexo oo ay noqoto mid cad oo yani aan kama hufta ah oo yani la isla garto oo aan mugdi iyo warware ku jirin taana waxa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa marka saddexaad ee oranaya waxa weeye diiwaangelintii iyaduna oo bilaabmi lahayd 20 bisha oo komishinkii carqaladan soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afgaran waa la isla mari waayay waxaananu ku kala nimi anagoo halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yani waxaan ula tagnay anagu 5 qodob baan la tagnay oo ah 5 qodob ee ah rukunka u ah in doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo oo waxa uu muhiim ah in horta madaxweynuhu committee ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13keedii si uu dhacdana xukuumadii demonstrationka oo ka mid tahay commissionka oo hadda shaqadii la joojiyay uu geliyana magaalada saayay guddi baaris awiri iyo inuu magaalada saayay uu sameeyay diiwaangelintii oo heed in la bilaabo ayaa qodoban ula tagnay waxaan kaloo ula tagnay in faragelinta madax banaanida komishanka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee komishanku oo ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaheed ahaan jiray qof xirfad yaqaan ah oo la baahiyo oo komishanku si madax banaan uu dalbado intaasaan wada tagnay nasiib darro waxaan u tagnay horta madaxweyne careysan oo moodid in isaga la dulmiyay oo waliba aanay dulmo badan iga sheeganaya anagu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magalaan saay June 26keeda ayaa ka go'need marka madaxweynuhu waxaan tahay madaxweynuhu qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in la isriixo si ku noolaan jirnay magalaan saay wada tashi iyo consensuskii tanaasulka ku soo dhex maarnay aan u diyaareen ayaanu tagnay caawa madaxweynahan arkay madaxweyne diyaar u ah wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo doorasho inuu qabto madaxweyne uma diyaaraha maraho ismaatin dambe uu dhalinayna nima muuqan iminka waxaan isla gaadhnay ma jirto waa mahadsantii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah
waxaan hadda waqtigan u qabanay saxaafadda inaan ka warbixinno oo xisbiyada mucaaradka uga warbixinno oo bulshada u sheegno kulankii wada hadalka la sugayay labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda iyo xisbigeeda inaanu u sheegno wixii aanu kala kulannay iyo waxaanu kala nimi waxaa 7dii caawa ballan madaxtooyada lagu qabtay oo labada xisbi mucaarad ka qayb galeen 2 xubnood iyo 2 xubnood na lagu wargeliyay ballantii hore noogu xidhnayd ee ahayd 18 May dabadeed aan kulanno 2 xubnood oo wadani ka socda oo ahaa aniga iyo musharax madaxweynaha amiin Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa 4 xubnood baan ku tagnay markii wada hadalkii furmay annagu ajandihii aanu ula tagnay waxay ahaayeen in arintii doorashada ee la isku maandhaafsanaa uu madaxweynuhu ka daayo carqaladda komishinka oo ahaa waxa weeye hay'adii u dhaxaysay xisbiyada hay'adii doorashada hay'adii madax banaanayd loogu talagalay inay doorasho qabtaan dalka ka qabtaan oo aanu arkaynay inay faragelin ku sameeyeen una sheegnay inaanu aragno tallaabooyinka uu qaaday oo dham inay faragelin yihiin inuu ka daayo madaxweynuhu loona ogolaado shaqadooda inay qabtaan lana soo dhameystiro xubnaha kale ka dhiman marka labaad xilligii doorashada oo 13 November ay tahay doorashooyin muuqan wax yani horumar oo isumaatin dambe uu dhalinayo waxaan ula tagnay anagu 5 qodob baan la tagnay oo ah 5 qodob ee ah rukunka u ah in doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo oo waxa uu muhiim ah in horta madaxweynuhu committed ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13keedii si uu dhacdana rukumadii domination-ka oo ka mid tahay commission-ka oo hadda shaqadii la joojiyay uu galiyana magaranayay guddi Paris Awiri iyo